كاسة سي صوب بحدي قرحتي صوب بحدي سيدين نقطي أنا إذا كما قرينايو سوري وكاسة أصحابتي نقارنا إن شاء الله هاي سيداسية ما يريد بتقدر سنيسة ما شاء الله تبارك الله بروح باكوري إن شاء الله يسووا ديكوريشن نقص معنا هنا وعزوم كلين دونا بإذن الله waxaan leeyahay ha ilaabina subscribe-ta like-ta share-ta dhammaantiinba waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada wataasa wax ka siiyay hooyo wadh qofkii ka faa'iidaystay maasha allah tabaaraka allah waa kaasa waa ujeedaan biidni illaahi raxmaan siday noqotay meelaha haddii aan ku dhadhaweeyo way u sawirmaysaa waaw halkan waa u jeedaan asxaabteeda qaaliga ah waxa ka sareysa halkana muxuu ahaa muraayadii marka haddii aan kor u qaado kolley muraayadaas sawirkiiba aniga igu soo feedback celinaya marka waad aragtaan hawshaas saa ka galay haddaan meelaha ku dhaweeyana kolley aniga baa ku dul sawirmaya marka bal insha allah hawshu way socotaa weli kama faaruqin qolka bedroomka amaba muxuu ahaayey toiletinka amaba suudiga insha allah ama musqusha balayno eegna sayno hali hada asxaabay haddaanaydun muxuu ahaa maqalku uu muxuu ahaayey idinka yara raago amaba uu idin soo gaari waayo mashiin baa ka meesha ka siraadan qasaaladii ayaa meesha iigu jirta dhar baa ii maydhmaayo waad ujeedaan marka insha allah halkan baan rabaa inaan nadiifiyo insha allah waxaad arkaysaan meeshaasaan kasoo waxeeyey biidnillaah waxaana kusoo waxeeyey tan markaan nadiifiyo halkan waan idinla jeclaysho bahashaa yari wax allaale waxa meesha ku jira hadday timo noqoto hadday qashin yaryar oo aanay gacantaadu soo saarahaynin ay noqoto way kaaga soo wada mudhodhudhuq bay siinaysaa gidaarada waad ku maydhaysaa meel kasta waad u isticmaalaysaa marka insha allah waxaan rabaa inaan halkan maluluqiyo marka koowaad tan baan u isticmaalaya marka labaadna biyo iyo saabuun baan u isticmaalaya haddii la hawada la ogolaado iyo in waxoogaa baking blue farawanigii horena idinku sheegay waxaan isticmaalaynaa waa 2 xabo oo kaasa ayaan u isticmaalay meeshan inaan ku cadeeyo haddaan idinku soo celiyo iyo isig allahumma salli ala maxamed iyo maradii yareyd darkiiseen intaas hadaba meeshan bal aynu haddii la hawada la ogolaado aynu ka dhigna wax yar oo dhan Allahi wa barakaatu asxaabteeda qaaliga aan jeclahay dhamaantiin ba soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan idin ka faa'iideeyo alaabtii yareyd ee maalintii dhaweytoole aan soo dhigay ee laga wada helay sida quruxda badan qaayaha leh leesoo weydiiyay su'aasheeduna igu badatay maxaad ku sidan ugu keenin karaysay maxaad sidan ugu wacsiisay insha Allah waxaan rabaa inaan idin ka faa'iideeyo walaalahayga qaaliga ah bari horena waan soo dhigay channelkayga way ku jirtaa qofkii raaca ee dib u raaca insha Allah biidnillahi raxmaan marka maxaan ku nadiifinayaa koo horta marada yar baan haystaa insha Allah biidnillahi raxmaan laba waxaan haystaa baking bloofer bahalkaas cadaynaya kaas la ogo gurigaaga gabadhay hadaa doonaysa inay wax ku dhigmaan gurigaaga waxyaabo fara badan oo waxaan ku orin marka hore adabada ka soo iibsan jirtay ay ku kala yaraadaan oo ay ku kala tashiilmaan insha Allah biidnillahi raxmaan waa walaaltinimada insha Allah biidnillahi waxaad adigu ka hesho gurigaaga ka hesho gurigaaga ku wacsiiyay inaad dadka walaalahayana u sheegto waa mid waajib ah insha Allah biidnillahi raxmaan intaas ayaan ku waxaynayaa waxa kale oo ku darsanayaa hadaad haysato isig labadaas loo waxa weeye laba chemical oo aad iyo aad wanaagsan waxaanay ku xirantay gacantaada iyo sida aad u nadiifisaysaa u qalajisaysaa u isticmaasho insha Allah biidnillahi raxmaan laakiin labada wax ee aan u isticmaalaya waa labadaas wax yar oo salsiya ama milix ahna dushan kaga qubaya hadda ma haysto laakiin waa soo qaadan karaa iyadana waa waxyaabaha badan ee aan gurigeyga ka isticmaalo biidnillaah marka insha Allah halka waxaan kaga soo saaray tiishka yar ee ilkaha lagu cadayo kan iska tuuro ma tuuro meelahan oo dhan baan ku keenin garaya insha Allah biidnillahi raxmaan waa lagu maydhay marka insha Allah hadalka yaanan badinin waan garagalaynaa insha Allah laga yaabaa asxaab fara badan inay isweydiinayaan oo leeyihiin kolley Faadmo baking powder-kan ba isticmaashay wax kale miyaana isticmaalin waan isticmaalaa waxa halka yaala isticmaalkoodu ma badna laakiin wax allaale waxa halka yaala kijada ayaa loogu talagalay ama dharka ayaa loogu
loogu talagalay sida aad aragtaan, ama in lagu nadiifiyo kanoo kale floorka ayaa lagu nadiifiyaa, kanoo kale waa aqalka, kanoo kale waa tinder maaha afwan waxa weeyaan maxaa magaciisi dhanka hygiene ranger weeye, dharka iyo waxaad u isticmaalaysaa insha Allah bismillaahi raxmaan, dharkaad u isticmaalaysaa, suuligaad u isticmaalaysaa, dharka cadcad waxyaabahaas oo dhan baad u isticmaalaysaa bismillaahi raxmaan. maba isticmaalo iguma badna. kanoo kale waxaad u isticmaalaysaa waa meelahan baxasha, laakiin maba isticmaalaba hadda malaha wuxuu yaalay. kanoo kale isaguna waa sidoo kale ma isticmaalo, way iska yaalaan. marmarka uu iga go-o ayaan inta badan isticmaalaa, hadda ma isticmaalayo, waxaan ka isticmaalaya malaha, laakiin waxaan idin tusayay in ay waxaasoo dhan gurigayga yaalaan, laakiin waxa aan gacantayda ku sameeyey ee aan ku suubiyey aan ka jecelahay. waxaad dabadda kasoo iibsatana waxaa ka fiican waxaad gurigaaga ku samaysato. markaan gurigayga fikirkaas iyo waxaasoo dhan igu dhasheen, waxaasoo dhan inay iska yaalaan ayaa muxuu ahaayey. hadda kanoo kale waxaa laga yaabaa inuu gurigayga yaalay muddo 5 bilood ah. kanoo kale kan ugu buuxaa, dharkaa loogu talagalay, maalin dhaweyd baan soo iibsaday. marka insha Allah waxaa kale way iska yaalaan. kanoo kale waxa laala wuxuu ka taraa ma jiro, waaba buuxaaba saad u aragtaan. suuliga ayaa loogu talagalay, xabadna kama taraayo. haddaan ku shubi doonaa insha Allah, waa suuliga haddaan ku shubi doonaa insha Allah. waan wada nadiifinaya marka ila socda, waxaan ku nadiifiyo iyo sidaan u nadiifiyo iyo sidaan dhalo uga dhiga insha Allah. horta kii kale waa kaasa halka hadaynu kaga soo gudubnaynta sidaasaan idhay. anjiladu ma raba inay ugu fara badato, too much noqoto, laygu caajiso. waxaan ku shubayaa hadda waa bahalkii suulka ka dhigayana waad arkaysaan, waxa ka baxayana waad arkaysaan. gabadha gurigaaga wax yaala samayso, jeermis oo dhan wuu kaa dilayaa. waa 2 acid oo aad iyo aad u kulul gabadhay haddaad arkayso. marka insha Allah waxaynu soo qaadanaynaa wixii aynu ku cadaynaynay amaba aynu ku kelin garaynaynay. maasha Allah asxaabtayda qaaliga fiiriya, haddaan hoos ugu dhigo kolley kamarada ay u dhacaysa. marka insha Allah waad arkaysaa